السلام عليكم داوديال muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa qisada dhagax weyn ee la sheegay inuu ku soo wajahan yahay dhulka. muuqaalkeena maanta waxaan ku faahfaahin doonaa xajmigiisa inta uu leeyahay, xawaaraha uu ku socdo, saameyn intee la'ag ayuu sameyn karaa, iyo xilliga la qiyaasayo inuu soo gaaro dhulka. ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. dhagaxyada dunida dibaddeeda ka imaanaya waxaa loo yaqaanaa meteoroid. cilmiga xidigaha astronomy ayaa waxay sheegayaan in maalin kasta dhulka aan ku noolnahay ay kusoo dhawaadaan dhagaxaan aad u fara badan taasoo cirib tiri kara nolosheena, laakiin inuu gudaha soo galo waxaa ka hortaagan atmosfeerka dunidan ku geedaaman. inta badan dhagaxyadani intaysan dunidu soo gudbin ayaa atmosfeerka ay ku burburaan, qaybo yaryar ah oo ka mid ah budooyinkoodana dhulka ayay soo gaaraan iyagoo aan la dareemayn. dhulka waxaa ku hareeraysan atmosfeer aad u adag oo wax walba halis ah oo dunida dibadiisa ka imaanaya ka difaaca. kumanaan dhagaxa ayaa dunideena goor kusoo dhici lahaa haddii atmosfeerkan uusan jiri lahayn, taasoo haddii qalqal ku jiro dulduleelada uu yeeshay ogeed. midaas uu sabab ah qiiqa gawaarida iyo warshadaha aad ku faraha badan. 29 bishan aan ku jirnay Abriil waxaa la qiyaasayaa in dhagax weyn uu kusoo dhici doono dhulka. cabirkiisuna waxaa lagu qiyaasay 4 kiiloomitir. magaciisuna waxaa la yidhahdaa OR2. dhagaxan waxaa la ogaaday 1998. xawaarihiisuna waa 20 mayl saacadiiba. haddii uu dhulka soo dhacana wuxuu geysan karaa khasaare aan la malaysan karin. khasaaraha uu geysan doono waxaa lagu qiyaasaa 6 milyan kiiloomitir square ama isku wareeg. dad badan ayaa aaminsan in dhagaxaani wax saameyn aan ku yeelan doonin dhulka, ka leexan doonana meel aad uga fog dhulka. in hadalladan la isdhex marayna ay yihiin wax aan jirin, dadkan loogu cabsiinayo si aysan ugu mashquulin cudurkan halistaha ee coronavirus, halka dadka qaarna ay ku qanacsan yihiin inay tahay dhamaadka dunida. si kastaba ha ahaatee, xisaabaadkii la sameeyay ayaa waxay sheegayaan in dhagaxaani wax saameyn aan ku yeelan doonin dhulka, kana gudbi doono masaafo aad uga fog dhulka. masaafadaas oo ah 10 jibaar inta ay isu jiraan dhulka iyo dayaxa ama bisha.